wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Cali Saciid Reegal oo ay wehelinayaan gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose Suhayn Maxamed Cali ayaa socdaal kormeer ah ku tagay deegaanada bari ee gobolka Saaxil sida degmada Laasciid iyo Xagal. wasiirka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha ee Soomaaliland Cali Saciid Reegal ayaa sidoo kale kormeeray wadada isku xidha Berbere iyo Harare Buur oo hawsheedu halkaasi ka socoto. ayaa dadka deegaankaasi ugu baaqay inay isu kaashadaan horumarka iyo dhismaha wadadaasi. waxaana hadaladiisii ka mid ahaa xukuumadda Soomaaliland waxay soo jeedaa wadooyinka in la sameeyo. wadooyinku waxay noqdeen waxa ugu muhiimsan ee horumarka ka noqon kara. waayo haddaan wada jirin oo gaadiidkiisu soconayno dadkiisu soconayno xoolihiiba cimiltarkiisu soconayn wax waliba way taagan yihiin wax soconaya ma jiraan. xukuumaddu waxay u soo jeesatay oo iminka ay focuska saartay in wadooyinka dalka oo dhan gacanta la saaro. sidoo kalena gudoomiye ku-xigeenka gobolka Saaxil Khadar Cali Cilmi iyo xogayaha fulinta ee dawladda hoose Suhayn Maxamed Cali ayaa labada mas'uulba dadka deegaankaasi ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaasi iyo guud ahaanba horumarinta deegaankani. sidoo kale xildhibaano ka mid ah kuwa golaha deegaanka ee degmada Berbera. wasiirka ayaa halkaasi waxa warbixino kala duwan ku siiyay odayaasha degmooyinka Xagal iyo Laasciid oo ka warramay xaaladda wadooyinkaasi iyo maal wixii aan u heli karayno u qaban karayno diyaar baan u lanahay. xukuumadda iyo Ilaahay subhanahu wa ta'ala waxaan ka codsanaynaa inay mid hirgasho Ilaahay inooga dhigo subhanahu wa ta'ala. xukuumadduna inay dadkeedu meeshii uu joogaba mas'uuliyad bay ka tahay inay wax u qabato oo halisyada wax kala qabato way ku maadsantay waana ku siboorsan. sagaxa u horeeya barasha fadhigay wadada barasha fadhigay walina waa soo aragtay gacantu ku hayaa waxay ka soo bilaabeen gobolku iyo heer degmada Berberi waxay ka soo bilaabeen biyo buure. annaguna waxaanu ka soo bilaabnay Raarbo waxa ka bariga ka xigta inta wadadaas ay ilaa bisha maanta waa 20 baan jeclahay waxay u soconaysay si xawliya iyo soo aragtay wadada. dhinaca kalena xildhibaan Cali Cabdi Dheere oo kamid ah golaha deegaanka ee degmada Berbera ayaa deegaanadaasi gaarsiiyay bacaha roobka oo ugu deeqay deegaamadaasi. Cabdikariim Saciid Saalax, Hoon Cable TV, Berbera.